munaasabad lagu xuseeyay maalinta nabadda adduunka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda DDG oo taageero maalgelineed ka helayso deeq-bixiyaha DFID ayaa ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada sida haweenka dhalinyarada odayaasha dhaqanka oo ay ka mid ahaayeen duubab balaas ururka naafada maamulka degmada Jowhar ee kan gobolka Shabeellaha Dhexe ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay howlwadeenada hay'adda DDG qaybtooda Jowhar sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay marti sharaftii lagu casuumay ee ka socday ururada bulshada qaabka loo soo qaban qaabay oo maanta lagu soo aadiyay waa maalin laga xuso adduunka oo dhan iyadoo lagu asteeyahay maalinta nabadda adduunka waadna ogtihiin noolaha meel kasta uu joogaba inuu ku nool yahay nabadda cid walba waa ogtihiin inay u baahan tahay nabad wax ka roon malaha adduunyada inta meesha fadhiso waa odayaashii dhaqanka u heelanay nabadaynta nabad haddaanay jirin nolol ma jirayso nabad la'aan waa nolol wixii aan ka dhaxalnayna dib ugu noqon mayno waa wada ogna aniguna waxaan ka tirsanahay guddiga diis waxaan ka soo dhawaynayaa nabadaynta isku xirkiisa isdhexgalkii bulshada aan ka shaqaynay أميرنا توغا ومدور كعيما انتفاعان البابدنا وهلقا حرتا إلى خيرات أمير كي وجدت وعي الله إدمو أراك دار موج قول لا إله نصرا كينون إسلاما كندي كينا قاراني قرب كين ميديا maalinta caalamiga oo qiimaha iyo qaayaha leh qofta bini'aadinka oo noloshiisa tahay hadii oo nabad la helin nolol ma jirtay duqa magaalada Jowhar Salax Muudey oo ka hadlay munaasabada ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda nabadgelyadu ay u leedahay noolaha qaybihiisa kala duwan hadii la yiraahdo nabad waa shay u baahan dadka ay u baahan yihiin dadka iyaga u baahan dhanka kale waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Ibrahim Deesh wuxuu u baahan yahay nabad nool kasta oo nool tarxiga hoos dhulka ku jira wuxuu u baahan yahay nabad inuu nabad ku daaqsado oo nabad ku saaxido inta waa jecel yahay ugu dambeyn waxaa dadkii ka soo qayb galay munaasabada lagu xuseeyay maalinta nabadda adduunka dardaaran u jeediyay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Sugaal Cismaan nolol ma jirto oo wax shaqo iyo wax la qabsan kara iyo wax soo kordhaama leh sidaas darteed waxaan idinku la ballamayaa adinka iyo dhammaan dadweynaha gobolka Shabeellaha Dhexe in maanta oo ah maalinta 22ka oo caalamkii oo dhan u aqoonsaday maalintii nabadda inaan ka faa'iideeyo Raaga Xasan Cumar warbaahinta STN Jowhar